waxay marka ugu horeysaa waxaan mahad u celinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradooda oo 3 sano oo isku xigtay ku guuleystay inay isugu yimaadaan shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed waa ku mahadsantihiin casuumadda idinkii wasiiradu waxaa kaloon salaamayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidoo kale mas'uuliyiinta nagala soo qayb gashay ay ugu horeeyaan wasiirada doomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho Mareya Bashiir xildhibaanada labada aqal wasiirada dowlad goboleedyada iyo dhammaan marti sharafta ay ugu horeyso fanaaniinteeda qaaliga ah kulligiin waa mahadsantihiin laakiin mahadda iyo salaanta koowaad waxaan halkan uga dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan laba arrin ayay soo jiidatay markii ay wasiir Khadiija iga codsatay inaan idinkala soo qayb galo fadhigan labadaas arrin waxay ahayd in halkudhiga aad halkan ku fadhidaan ay bixiyeen milkiilayaasha qaranku ama milkiilayaasha dalka markaa 3 sano gudahood inaad isu aqoonsateen wixii ay ahayd inaad hore isugu aqoonsataan oo ah idinku inaad tihiin milkiilayaasha dalka oo soo dhaweynayna haddana waxaan soo dhaweynayaa in milkiilayaashu ay yiraahdeen dalkeena musuqmaasuq uma ogolin argagixisana uma ogolin taasna waxay qabatay indhahayga sababtoo ah waxaa muuqata inaad rabtaan inaad milkiilayanimadiina iyadana aad ka dhabaysaan waa ku mahadsantihiin dooda ay soo jeediyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ama milkiilayaasha dalku oo inteena kale oo tirada yar u sheegeen oo ah ma ogolin argagixiso ma ogolin musuqmaasuq waa dood aan taageersanahay waxaa laga yaabaa dhalinyarada halkan joogta qaarkood inay 20 jir yihiin in ka badan 15 sano inay dagaal argagixiso kula jireen welina ay kula jiraan doodooda maantana ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada waayo waxay aqbaleen argagixisada in anagu aanan diin wadaagin waayo inteena halkan joogta gaala ay noo yaqaaneen waxay dhalinyaradu noo sheegeen inaanan argagixisada calan la wadaagin waayo ma ogola calankeena mid madow ay samaysteena waa leeyihiin waxay dhalinyaradu noo sheegeen inaanan dhul la wadaagi karin argagixisada sababtoo ah argagixisadu waxay aaminsan yihiin inaanay xuduud jirin annana waxaan aaminsanahay inaan difaacano xuduudaheena cir dhul iyo badba waxay wiilashay gabdhaha Soomaaliyeed og yihiin inaanan magac la wadaagi karin argagixisada sababtoo ah Soomaalinimada way inkirsan yihiin waxay doodani dhab u tahay inaanan dad la wadaagi karin sababtoo ah waxay aaminsan yihiin qof walba in la dilo horumar ma aaminsana waxay aaminsan yihiin dib u dhac sababtaas daraadeed ayaa dhalinyaradeenna maanta
doodoodu ay tahay dalkeenna argagixiso uma ogolin, dalkeenna musuqmaasuq uma ogolin. tusaale yar oo tixraacaya sida argagixisadu ay uga soo horjeedo jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay mid ka mid ah mashaariicda dalka lagu fuliyo waa dhismaha wadada u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooye. wadadaas haddii la dhiso waxay taageeraysaa dadka dhaqaalaha yar ee ka ganacsada khudradda, waxay dhiirigelinaysaa ganacsiga, waxay xallinaysaa isu socodka hooyooyin, aabbayaal iyo carruur, waxay isu dhaweynaysaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Afgooye. intii wadada dhismaheedu uu socday oo dhammaan doonta haddii Ilaahay yiraahdo 2 bilood gudahood iyadoo u dhisan si heer sare ah, waxay argagixisadu soo weerartay in ka badan 11 mar. waddo dhul lagu dhisaayo oo loo dhisaayo shacabka Soomaaliyeed, qofka raba inuu ummadda ka hor istaago, diinna lama wadaago, dalna lama wadaago, dhulna lama wadaago, calanna lama wadaago, waa inaan iska celinaa haddii aan Soomaalina. qaacidada argagixisadu waxay ku dhisan tahay dil iyo dumin, waxay ku dhisan tahay dagaagin. intaas oo la isku daray macnaheedu waxay tahay mustaqbal ebra. marka dilna yeeli mayno, duminna yeeli mayno, dagaaginna yeeli mayno, waa iska celinaynaa argagixisada. dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa aan loo mahad celin ama mahad ku filan la siin waa wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo ku labisan dharka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama dhammaan dharka ciidamada qalabka sida. dib u habeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu sameeyay ayaa dhalisay hadda in inta ugu sareysa madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro idinkeedeen, laga bilaabo taliyaha iyo hogaamada muhiimka ah. dib u habeyntina way socotaa, inta mas'uuliyadda oo dhan idinka la idinku soo wareejinayo haddii Ilaahay yiraahdo. dhalinyaradu ma aha inay milkiilayaashii kaliya yihiin, dhiigga dalka ayaga u huro. inaad 70% ka badan aad ka tihiin bulshada Soomaaliyeed ayaa keenaysa inaan aqbalno inteena kale inaad tihiin milkiilayaasha dalka. iyada ayaana keenaysa inaad idinku tihiin cidda bixisa dhiigga ugu badan. waxaa kaloo halkan isugu timaadeen inaad ka hadashaan sida musuqmaasuqu uu xun yahay. waa tiirka labaad ee dooda kulankani uu ku dhisan yahay ama shirweynahan qaran ee la isugu yimid uu ku dhisan yahay. isaguna waxaan aaminsanahay inuu yahay tiirka labaad oo aasaas u ah in la xoojiyo dowladnimada Soomaaliyeed. sababtoo ah inta musuqmaasuq uu dalka ka jiro cadaalad jiri mayso, inta musuqmaasuq uu ka jiro kala dambeyn jiri mayso, inta musuqmaasuq uu ka jiro dowlad xoog leh ma dhalan karto.
inta musuqmaasuq uu ka jirana way adkaanaysaa inaan ka adkaano argagixisada lafteeda. in qodobkiina labaad dhalinyarada Soomaaliyeed haddii aad tihiin aad ka dhigataan marka in lala dagaalamo musuqmaasuqa, iyadana waxaan aaminsanahay inay muujinayso inaad u soo jeesatiin inaad ka dhabaysaan lahaanshaha aad leedihiin dalka. dowladnimada ka sokow oo baaba'da muxuu musuqmaasuqu keenayaa? qofka shakhsiga isaguna wuxuu ku dambeynayaa meel ebera, waayo waxa uu kalifayaa inaad dhacdo maalka dadweynaha, inaad dhantaasho horumarka dalka, inaad istiraahdo dhigo meel waxaadan lahayn kadibna aad ka dhimato. marka ugu dambaysa waxa ay tahay waxaad godka la geli karta ma jiraan. marka ugu dambaysa waxay tahay waxa kaliya oo aad qaadan karto waa camalkaada iyo sharafta halkan aad ku reebto. in dadku waxa ay leeyihiin loo dhaqaaleeyo si ammaanaha qof walba u hayo, dhaqankii hore wax laga bedelo, aan aqbalno wixii hore aan soo marnay inay khalad ahaayeen, laakiin uu jiro waqti la isku hagaajiyo mar walba. mas-uuliyadda ugu horeysa waxaa laga rabaa kuwa 70% dalka ka ah. weliba waqtiga hadda aan ku jirno dhalinyaro iyo ganacsato iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo qarka u saaran bisha Febraayo haddii Ilaahay yiraahdo in deynta laga cafiyo, waxay keenaysaa mas-uuliyad ka weyntii hore. baahi loo qabi doono xirfad ka ballaaran oo maamultii hore, ammaano ka badantii hore, lala dhaqmo adduunyada oo ka hufan kii hore. qofka Soomaaliyeed marka oo qayb ka noqda fursadda dalka soo mari doonta marka deynta laga cafiyo oo dhaqaaluhu kobco oo dhalinyaradu ay shaqo heli karaan oo jidadka iyo isbitaalada iyo iskuullada iyo buundooyinka dib loo dhisi doono. dowlad Soomaaliyeed oo dunida dib ula falgasha aan noqon doono. waxaa la rabaa idinku inaad ilaashataan. waxaan rabnaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan isugu yimid oo 4 maalmood oo soo socda halkan uga munaaqashoon doona xagee buu dalku joogaa, xagee baa la rabaa in la geeyo, sidee baa la rabaa ama jidkee baa la rabaa in loo qaado. waxaan rabnaa inaad ka bilowdaan nabadda iyo dowladnimada sida looga shaqeyn lahaa, waayo iyadaa nagu caawin doontaa in ubadkeenna aan si wanaagsan u barbaarino, in waxbarasho fiican aan helno, in adeeg caafimaad oo fiican aan helno, in shaqo qofku naftiisu ku dabari karo dalkan uga shaqeyn karaan helno, in nolol fiican iyo guur fiican ay dhallinyaradeenu helaan, in hoggaan fiican uu dalka ka soo baxo, in dhaxal reeb fiican uu dalka ka dhaco. faa'iidooyinkaas qof uma dhalin karno, qolo iyo qabiilna uma dhalin karno. dowladnimo iyo qarannimo baan ku dhalin karnaa. aasaaskii qarannimada iyo dowladnimadana waa idinka. maadaama marka aad 4 maalmood wada joogi doontaan, mas-uuliyiinta dowladdana ay idin imaan doonaan, wasiiro iyo xildhibaano, madaxda gobolka Banaadir, madaxda dowlad goboleedyada, su-aasha la rabo inaad isweydiisaan waan 2 sano ka horna idiin sheegay waxa ay tahay waxaad saami 70% ilaa 75 ku leedihiin shirkad
shirkadaas idinku aad saamiga ku leedihiin boqolkiiba 70 ilaa 75 waxaa xukuma inta kale idinkuna banaankaad ka fiirsataan waa number aad u dhib yar oo xisaab ah dalka boqolkiiba 70 ilaa 75 ayaad ka tihiin dhalinyaro dalku waa shirkad la wada leeyahay oo aan cid ka lahayn shirkadda saamiga ugu badan waxa iskala cidda ugu badan waa idinka waxa la rabaa marka inaad ka tashataan shirkaddii aad ku lahaydeen saamiga ugu badan oo banaanka aad ka fadhin jirteen oo la idin sheegi jiray shirkaddiinu siday u shaqeyso ama la idinku xukumi jiray in loo bedelo in saamilayda ugu badan shirkadda ay xukumaan kuwa kalena loo sheego inaan la dhibaateynin laakiin qayb ay ka yihiin. Wassalaamu calaykum.